cilmiga culimada iyo cadaaladda madaxda iyo deeqsinnimada dadka maalqabeennada iyo ducada fuqaradu ay ducaynayaan afartaasee adduunka dhanba uu ku taagan yahay cilmu alculamaa caalimka cilmigiisu inuu ina anfaco waa inuu caalimku noqdaa caalim ilaahay ka baqayo khashyo leh innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa cadlu lumaraa madaxdu inay cadaalad samayso waxay u baahan yihiin inay ilaahay gartaan marka u horraysa hadday ilaahay ka baqaana ilaahay ay gartaan cadaalad bay la imanayaanoo way cadaalad samaynayaan hadduu qofku ilaahay uusan garanayn cadaalad samayni maayo dulmi baa noloshiisa ka soo bixi haddii ninka maalqabeenku ilaahay uunan ka baqayna xoolaha wuxuu moodi isagu inuu cilmigiisa uu ku keenay qaala innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii qaaruun calayhi lacna ayaa lagu yidhi sakada xoolahaaga ka dhiib wuxuu yidhi xoolahan nebi muuse uu bixi uu leeyahay aniga xoolahan ilaahay ima siina aqoon iyo karti anuu aan leehay ayaan xoolaha ku keenay buu yidhi qofku hadduu alla ka cabsi uunan lahayn xoolihiisa wuxuu u malaynayaa inuu karti uu ku keenay hadduu laakiin ninka maalqabeenku alla ka cabsiyo iimaan uu leeyahay waxa uu garanayaa nicmadan ilaahay inuu u dhiibtay deedna lagu eeganayo la eegaya meeshuu ku bixinaya meesha kale deedna xoolihiisii meesha wanaagsan buu ku bixinayaa faqiirku hadduu ilaahay ka cabsoonayo faqiir wuxuu noqonayaa cafaafle oo dhowrsoon oo baahidiisana bini aadamka ka qarsanaya buu noqonayaa haweenku hadday ilaahay ka baqaan noloshoodoo dhan baa toosaysa cahdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam gabadhii reer madiine ayaa nebigeenna u timid haweenay reer madiine ah markaabay nebigeenna ku tiri nebi allow dembiba aniga iga dhacay dembigaa iga dhacayna wax kala maahina xumaan baan la yimiday calooshaydiina ilmo ayaa maaragtaanay ii galay bay tidhee aniga xadka in lay maryaan hadda diyaar u ahay aakhire in laygu cadaabo diyaar uma yihi dembigaan galay adduunka in laygaga gooyaan diyaar u ahee dembiga iga goobay ku tidhi gabadhaasi askari ma soo qaban cid dembigaa markay samaynaysay arkaysay oo soo sheegtayna ma jirine iimaankeegii alla ka cabsigeeda ayaa keenay oo mujtamaca ay ku dhex noolayd ee mujtamaca madiine ku noolaa ayaa ahaa mujtamac ilaahay ka baqaayo ku xisaabtamaya ilaahay baa ku arkaayo ilaahay baa ku maqlaya tuugu markuu rabo inuu waxado hadduu ilmo yar u jeedo dembiga uu ku socday uu ka joogsan wuxuu uga joogsan ilmaha yar baa maaragtaane ku sheegi buu leeyahay kii xumaanta iyo macsiyadda doonaya inuu sameeyo hadduu arkay ilmo yaroo ag taagan oo arkaayo u jeeda waxa uu leeyahay ilmaha yar baa sirtaada sheegi ilmaha yar buu markaa ayuu ka cabsoonayaa inuu sirtiisa uu sheego haddii qof uunan meeshaa joogin waxaa laga yaabaa tuuguna tuugada uu ku dhici lahaa zaaniguna zinada uu ku dhici lahaa marba haddaad ilmo yar bay arkaaya dembiga inaad ku dhacdo aad uga joogsatay ilaahay bay arkaayana dembiga aad uga joogsan weyday waxaad ogaataa waxaad ka dhigtay allihii ku abuuray kuwa wax eegaya ka ugu liitaad ilaahay ka soo qaaday markaas mujtamac madiine ku noolaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku barbaariyey oo la baray ilaahay baan qof walba u jeeda ilaahay baa ku arkaayo ilaahay baa ku maqlaaya deedna markaasaa mid walba noloshuu ku noolaa waxaa dhacdee markaa ilaahayna inuu ka cabsoodo allihii abuureen inuu ka xishoodo kii miiga joogaa dhacday ilaahay inuu ka xishoodo ka cabsoodo kii magaalo jooga hadduu dembi sameeyo waxaa dhacday inuu markiiba nebiga intuu u yimaado sida haweenayda ay yidhaahdaan nebi allow dembigaasaa iga dhace aakhire anigu diyaar uma yihiyo cadaabka aakhire ma xamili karaye adduunka ha laygaga gooyo haweenayda nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi aabbaha iigu yeedh aabbaheed bay u yeedhay markaa buu nebigu uhi gabadhan si fiican u hay oo dhaqaale ceebteedana ummadda ha u sheegin maalinta ilmaha ay dhashana ii keen buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam deedna markaaba ilmihii iyadoo wadatay nebiga u timiday haddana celi buu nebigu yidhi ilmaha soo nuuji markaad soo nuujisay naaska aad ka gudhiso haddana adiguna markaa ii soo noqo ii kaalay ilmahaygii oo cunto cunaaya ayadoo weliba tusinaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilmahaasi inuu haddeetoole iskii cunto uu u qaadan karo ayay nebiga u keentay u timiday markaa buu nebigu yidhi iyadii ilmahayga kala qaada waa la kala qaaday tiirkaasaa lagu xidhay ayadoo dharkeedii qabta ayaa dhagax lagu dilay waana sidii sharcigu ahaabaa la mariyey salaataljanaasadeedii markuu nebigu yidhi ha ku tukatid ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar baa joojiye oo ku yidhi ma zaaniyadan zinaysatay ilmahan dhashay waad ku tukanaysaa nebi allow markaa buu nebigu yidhi yaa cumar gabadhaasi way toobad keentay toobad 70 inuu reer madiina haddii loo qaybiyo ku fillaan lahayd buu rasuulku yidhi cid soo qabatay ma jirto laakiin halkana kamera ugu rakiban tahay
waxaa laga dhaadhiciyey ilaahay uu ku arkaya uu ku maqlayaa aakhirana waa lagu xisaabin doonaa aakhiradii baa ku weynaatay qalbigoodii ilaahay baa ku weynaaday qalbigoodii deedna markaas waxaa dhacday qof walba inuu markaa noloshii adduunka ilaahay uu kaga cabsoodo mujtamac hadduu ilaahay ka baqo waxay helayaan nolosha adduunyadu jannay noo noqon nolosha adduunyadu jannay noqonaysaa goormay janno ku noqon waa marka dadku ay ku noolaadaan diin markay ku noolaadaan alla ka cabsi markay ku noolaadaan xishood markay ku noolaadaan ilaahay bay arkayo ee maqlaaya markuu qof kastoo muslima uu garto cid dadka dulmida ayaa la waayi khilaafadii cumar bnu abubakr sidiiq radiyallahu canhu markii abubakar talada ummadda loo dhiibay ayuu abubakar qaadiyulqudaat waxau ka dhigay cumar bnu khadaab buu ka dhigay 6 bilood markuu booskaa uu hayo waa maxkamadda qaadiga ugu sarreeyey ayuu cumar soo celiyey shaqadii marka abubakar buu u keenay maxaa dhacay buu ku yidhi yaa amiir yaa cumar ma shaqadan kuu dhiibay baad yaraysatay may shaqadaad ii dhiibtay waa shaqo weyn laakiin abubakar oo waxaan kuu sheegayaa 6 bilood ee halkaa aan fadhiyey 2 qof oo ishaysatay iima iman ummaddani xaqii ilaahayna way garatay xaqii dhexdooda yaalayna way garato way ilaalisay xaakim ummaddan ilaaliyo uma baahnee cabsida ilaahay ummaddani ay ka baqayso ayaa mid walba xaqiisii ilaaliyee shaqadan iga qabsa buu yidhi waad i caddilaysaaye ummad halkan ay ka duntaa waxa weeyaan waa qiyamka akhlaaqiga iyo iimaaniyaadka haddaad aragtid mujtamac ilaahay ka xishoonayn kana cabsanayn siday doonaanna u dhaqmaya haddaad aragto wuu dunsan yahayba mujtamacaas mujtamac jira maaha haddii sifaadka daakhiliga ee gudaha bini aadanka kaga jiray cabsida ilaahay ay ka mid tahay mujtamac ay ka baaba'aan qiyamka daahiriga muuqaalkuna waa ka dumaya si walba saa darteed baa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam 3 sannadood ummadda waxau ka soo dhisayay iimaaniyaadka weliba siran 10 sanana nebigu ummadda wuxuu ka dhisayay iimaaniyaadka calanan 13 kaasana waa xayaat makiya baa la yidhahdaa qur'aanka maka ku soo degay nebigeenna calayhi salatu wasalaam intuu maka joogayna ummadda waxau ka dhisayay iimaanka iyo caqiidada laga saxayay 13 sano oo maka la joogay soon iyo zako iyo sadaqad iyo xaj iyo xijaab axkaamtaasi waa axkaam madaniya madiina ku soo degtay dadkii shareecaddan islaamka xambaarayay ee diintan maaragtaane garanayay qiimaheega ayuu nebi maxamed maka intuu joogo ayuu soo dhisay يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليغدفن في قلوبكم الوهن قيل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت waxaa dhow buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waaqaca maanta aan taagannahay ayaa nebi maxamed 14 qarni ka hor ayuu nebigeennu ka sii warramay uu leeyahay waxaa dhow buu nebigu leeyahay oo imani doonta xilli dadku markay cuntada ay cunayaan sida xeedha ay dusheeda ugu kulmaan ay hareeraha uga soo fadhiistaan in cadowgu dhinac walba inagaga yimaadaa imani doonta buu rasuulku yidhi saxaabi ka mid a saxaabadaas rakacoo yidhi maalinta acdaada islaamku ay dhinac walba naga soo fadhiisan doonaan ee sida xeedha loo cunee loogu ururo ay noo cuni doonaan miyaan yarnahay nebi allow maalintaa ma tira yariba markaa buu nebigu yidhi may maalintaa waad badan tihiin buu nebigu yidhi waad badan tihiin laakiin xun baa tihiin buu yidhi daad xoor baa tihiin daad xoor waxaad macno leedihiin ma jiro markaasuu nebigu yidhi walaa yanzicanna allahu weliba ilaahay uu ka siibi oo uu ka siibi muxuu ka siibayaa cadowgiinna laabahooga haybaddii ay niga haybaysan jireen waa laga siibi buu nebigu yidhi inninkana wahni bay nagu dhici doona wahni markaasay yidhahdeen asxaabta wahniga noo sheeg haddana waa maxay wuxuu yidhi adduunyada ayaad jeclaanaysaan
dhimashadana waad dhibsanaysaan buu rasuulku yidhi inaad noolaataan baad jeclaanaysaan inaad raaxaysataan baad jeclaanaysaan inaad iska ciyaartaan baad jeclaanaysaan dhimashada iyo aakhirana waad karhaysaan buu rasuulku yidhi labada cudur maalintu inagu dhacana waxaad noqonaysaan buu nabi maxamed ina leeyahay waxaad noqonaysaan xumbadan daadka ayaad la mid noqonaysaan oo qiimo ma lihidin xumbada daadku markuu yimaadana wax buuran weeyaan xoogaha yar kadibna dabayshu markay timaadana way baaba'daa waxaad qiimo tiradiinnu waa badan tahay weeyaan cadadkiinnu ma yaro cudadkiinnu ma yaro dhaqaalihiinnu ma yaro kaantitee xagga tirada waad badan tihiin laakiin kayfiyadda xagga tayadiinna yar bay ka dhigan tahay ilaahayna tiro badan eegi maayo dadka ilaahay waxa uu eegayaa iimaaniyaad kale dad ilaahay ku xidhan baa ilaahay eegayaa kam min fi'atin qaliilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين applicationka Payc waa abaad ku dirsan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta qofka aad u diraysid waxay lacagtu ugu dhacaysaa telefoonkiisa haddaba ha moogaan applicationka Payc oo kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka